waxaan ka jawaabayaa nimanka la yidhaahdo jaars horta ma soomaalida mise maaha waa oromo iyo gelikoobe markay istilayaan ma laba beelood oo soomaaliyeed baa istilaya mise waxay istilaya oromo iyo soomaali jawaabta saxda ah waxa weeye nimanka jaarsan la yiraahdo iyo nimanka la yiraahdo geli markay istilayaan laba beelood oo soomaaliyeed oo walaala oo wiil iyo abtigiye baa istilaya dad soomaaliyeed baa istilay soomaali maryoole baa istilaysa haddii marka aad Minneapolis ka qabato mudaharaad oo aad tiraahdo mudaharaadka Minneapolis ka socda wuxuu dhan ka yahay dadka Soomaaliyeed jaarsad u laynayso waa fawaaxish waa ceeb waayo laba beelood oo Soomaaliyeed ayaa doonaysaa midna ummadii Soomaaliyeed inaad ka hor keentad cadow ka dhigto midna aad hoosta gashanaysaa anigu markaa miyaan ka yeelayaa no dadka Soomaaliyeed muu ka yeelayaa wuxuu maya jaarso waa dad Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed reerka ay cidda ay Soomaali ka yihiin iyo isirka ay Soomaali ka yihiin cidda ay Soomaali ka yihiin waa la wada garanaya dadka Soomaaliyeed si fiican buu jaarso ciddii aan garanaynana idin sheegay anigoo ah Sultaan Cabdikariim Faarax Abdulmadiid baa sultaankii guud ee qoomiyadda dareeda waxaan ka mid yihiin haddii alla ka dhigayo shacbiga aan odaygoodii yahay aan suldaankoodii yahay bay ka mid yihiin nimanka la jaarso waa niman cali madaxweynaha waa niman cali madaxweynaha waa niman madaxweyne direeda waa niman diriirida irir samaara gabdheera waa dad Soomaaliyeed waa caws la fil waa asalkii Soomaalidu meesha ay ka timi hadday iyagu Soomaali noqon waayeen cid Soomaali noqonaysa ma jirto war hal sheer garay barnaamij nimanka la yiraahdo suldaan aadba inta yar baa ka dhacaya nimanka la yiraahdo garay aadba ku salaamaya waa ku siinaya hadalka wax badan baana hadii alla ka dhigayo nimanka la yiraahdo garay koob aniga war heerowowgi qoraan halkan qoraalkay ku qoran tahay beesha dhan ee habar yoonis reerka dhalay waa abayoonis waa nimanka culimaa diinka waa laf kamid ah hadii alla ka dhigayo maaragtaanay nimanka la yiraahdo gari koomba kablo daaro waa reerowowgi in hadii alla ka dhigayo ay jaarsa maanta la dagaasho oo dhibtii iyo dagaalkii iyo fidnadii uu galiyay Cabdi Maxamuud Cumar Oromo kaga aarsato xaashaka Allah waxa weeye raali ka noqon maayo waxaan diyaar u ahay labada reer midna suldaankoodii yahay midna ay hadii alla ka dhigayo yihiin dadkiina dhalay inaan heshiisiyaabaan diyaar u ahay ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waxaan leeyahay arrintooda sidaa lagu galo yaan labada qolo midna la raacay dagaalkii gareeyay u dhaceeyay nimanka la yiraahdo maaragtaanay Boran Calina laba beelood oo Soomaaliyeed buu dhaxay laba beelood Soomaaliyeed ayuu iyagana u dhaxay Boran iyo Jaarso waa laba nin oo walaalo waa ilmo cali madaxweyne ninka doonaya inuu ka dhigo Oromo ama cid kale ka dhigo inaad waxa weeye arrintaas ma qabato Oromo nimanka la yiraahdo Jaarso iyo nimanka la yiraahdo Boran Cali waa laba beelood oo curadkii qoomiyadda direeda yaan beelay ninkii la diro ninkii waa aan Soomaali ma haw dilo waad qaldan tahay dad Soomaaliyeed baad la diriraysaa qabyaaladayn mayno oran mayno jirib Soomaali dir kamid ah baad la dagaalamaysaa waxaan leenahay dad Soomaaliyeed baad la dagaalamaysaa ee walaalow ka joog waxaan ka wadaa fidnada meesha la yiraahdo hadda imaka labadan beelood u dhaxaysay midna labada reer labadii gacmooda ee walaalahaya arrinta waynu dhamaynaa waanu ka xunnahay qasaaraha soo gaaray waan tacsiyadaynayaa reerowowgay dhibaatada iyo wixii dhibaato soo gaaray waanu la qaybsanaynaa murugada iyo ciilka waa ragga dhintay iyo gabdhaha dhintayba waxa weeye waa dadkayagii labada dhinacba waa dadkeennii yaa isku diray waxa isku diray Tigree iyo inay baa isku diray suldaan aadba ku salaamaya hadal qiimo labadan kan uga soo jeedisay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo nasteex u ah labada beelood jaarso cali madaxweyne dir iyo beesha kale ee gari koombe iyadna daaroodka ruuxaantii dadka waxaan bunbuuninayaa waxaan doonayaa inay ummadda isku diraan waxa weeye xukunkaasi liita ee lagu habboocda ku tukubaya ee hogaaminayo dhiigii cabkaasi Cabdi Maxamuud Cumar ninka la yiraahdo inay waan gartay waxaan ugu baaqanaa isaga iyo tolku ka soo jeeday beesha weyn ee ogaadeen
meel kastoo joogaan daafaha iyo dibaddaba in dadka soomaaliyeed ee xinibda isdilaya laga daayay in qaarna lagu idhaaho waa oromaatiin qaarna la idhaaho waxaa tihiin soomaali taasi waxay laga dhaxli doonaa cawaaqib xumo iyo arrimo aad u fal xun oo ummadda soomaaliyeed dhexdeedu ku kala dhimato marka waxaan ugu baaqanaa beeshaasi uu ka soo jeedo cabdi iiley ee la idhaaho ogaadeen inay ummaddaasi kala dhex galaan inay ummaddaasi cidna garab ayna siin si nasteexa arrinkaasi aad sheegtay iminka ugu baaqday suldaan ay ummadda ugu soo baaqaan laakiin dhallinyaradooda iyo waxaad moodaa dadka qaar qurbaha jooga sida maraykanka oo kale minneapolis oo kale iyo uu nimanka ogaadeen leeyihiin taarso waa oromaanan laynasa dadkii geriga ahaa ee kusoo duushay taasi waxay noqonaysaa mid taariikh xumada midow u gasha nimankaa la idhaaho ogaadeenka cawaaqib xumo iyo ceeb u soo hoyatay weeye nimankaa ogaadeen inay labada reerood ee soomaalida ee walaalahaa isdilayay inay beel u hiiliyaan dadka qaar waxay u arkayaan inay daaroodnimo ugu hiilinayaan beeshan kale cali madaxweyne dir ee jaarsana tollaani ma hayso annagaa dhabarka ku hayna kuwo kalaa dhabarka ku haya marka waxay noqonaysaa in dir iyo daarood isdilo marka ogaadeenka waxaan ugu baaqayaanoo hadalka halkiisaan ugu tagaa moogta ha laga daayo fidmada dir iyo daaroodka laga dhigayo iyo fidmada oromada iyo soomaalida la isku dirayo ninka la yidhaha nabiilow horta dee waxa weeye ninba si ula toosan anigu waxaan qabaa anigu ma aaminsani in ogaadeen ama absame haddii aan la idmaayo maanta tigree u xiisaya oo leh haddii aan la ka dhigayo tigreegii tegey baa ayaa nooga khayr roonaa haddii aan la idmaayo maaragtaanay oromada maanta timi anigu inuu jiro ma qabo xaqiiqadu waxa weeye innagii ogaadeen horta waxba ma kala dihin ogaadeen iyo innagu dad isku mid a baynu nahay soomaali baanaynu nahay oo dhibaata uu ku hayo weliba cabdiiley baa dhibaato labadaba ku hayo ummadda soomaaliyeed baynu nahay dalka etoobiyana waxa weeye waxaynu ka mid nahay qoomiyadaha aan xaquuqda ku lahayn marka xaqiiqada laga hadlo ninka la yidhaahdo abiyey iyo oromada maanta dalka etoobiya qabsatay waxay yeeli doonaan waynu isla eegi doonaa laakiin dalkeenna xoogga lagu raaciyey oromada dalka etoobiya lagu raaciyey ummadda soomaalida waa la xaqiraa waa la dhibaateeyaa kii soomaaliya ku dhashay iyo kii haddii alla ka dhigayo soomaali galbeed ku dhashay isku sibaa loo arkaa waa la wada dhibaateeyaa dadka ugu badane dhibaatada ugu badani soo gaadhayna tigree iyo talisyadii ugu dambeeyey ay dhibaateeyeenna waa beeshaas absame weeye waananu ka xunnahay in dadka soomaalidu xataa ay u soo raaceen oo magaalo waloo soomaaliya laga soo dhiibay ilaa meesha la yidhaha hargeysa oo magaaladaydiiya qarin maayo waa godob iyaduba boosaaso gaalkacayo dhuusa mareeb ilaa muqdisho laga soo dhiibay qalbi dhagaxoo ugu dambeeyey arrin saxa maaha waana haddii aan la idmaayo reerkay ugu badana dhibaatada ugu badani soo gaadhay inay yihiinna shaki kama taagna shakhsiyaad yaroo kooban oo magaca absame ama ogaadeen dhulka la gelayo oo tigree u barooranaya maanta waynu aragnaa shalayna waynu arkayna qaar xataa dhibaato ummad soomaaliyeed la soo gaadhsiiyey carruur iyo dumar la laaye ku faanaya iyo qaar rag la laayo oo sida ogaadeenka dhexdiisa maydkiisii isku sawiraya oo xataa madaxweyne ku-xigeen iyo madaxa leh oo cid walba leh oo isku sawirayana waynu arkayna oo rag soomaaliyeed oo isku sawiraan sultan markaa anigu waxa weeye meesha ahaan iyo diin ahaanba dad soomaaliyeed oo sharaf laa inay matalaan anigu u qaadan maayo habeenna kuma seexan kumana soo toosin laakiin xaqadu waxay tahay dibka horta sultan soomaalidu waxay tidhahdaa sultan hadal kuwata waxay tidhahdaa hadal lama wadaagi karo laakiin caana waa la wadaagaa mar adana suldaanaa tahay haddaad hadal bilowdo hadalkaagu aad buu dheeraanaya waxaan jeclaan lahaa hadalka inaynu googoosano laba daqiiqo marka waxaanu sheegaynaa maanta maxaa haddaba taagan wixii lasoo maray taariikhda waa laga dheragsan yahay iyo xukunkaasi tigreega ahaa ee uu hogaaminayey cabdi ilay ummadda uu ku xasuuqay wuxuu soo maray uu taagan yahay maanta ummaddii maxaa u xala waxa u xala balkow nabadgelya u xala waxaa la soo sheegayaa dowladdaasi abiy axmed ee maanta dhalatay weli xukunkii meelo badan loo wareegay intiisan oo dhan laakiin ciidamada qaarkood inay weli ku sii jiraan nimankii tigreega ahaa oo yaala ahaa fidmada halka haddaba ay ka socotaa waxa weeye
ciidamada laftoodiiba waxa lacag laga soo siinayaa meesha la yidhaha maqalle ee xarunta waa tigreega xaqiiqadu waa taa khidmada halkaas ka socotaa lacag 7 milyan oo dollar waa la qabtay shalay toole dowladda Itoobiya way qabatay oo gacanta ku dhiftay oo lagu soo waday deegaamadaas waxa imika waxaanu la yaabanahay oo la leeyahay Oromay waxa istilaysa Soomaali waxa soo socoteen canfar iyo Soomaali la isku diro waxa soo socota canfar iyo Oromay madax la isku geliyo waxaan markaa dawladda ugu baaqnaa sare uu hogaaminayo Abiy Ahmed in uu talaabo adag laga qaado nimanka ciidamada ah ee Soomaalida iyo Oromada isku jira ee wali la sii shaqaysanaya dadkii siyaasadda ku feelgaroobay ee 20 sano waddanka gacanta birta ku hayay ee siyaasadda furan buu leeyahay dimuqraadiyadda marka waxaan leenahay waa in dadkaana loo fiirsado xagga Oromaduna dadka iska qabato xaggan kale ee Soomaalidana waynu garanaa waa Abdi Ilay iyo yaro ku xeeran waan kaaga baxay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Nabiilow su'aal baan dadka jawaabay arrintaada wax ka dhigi doona horta su'aal bay weydiiyeen dad aanu saaxiibanahay oo dhalinyaro iyo waayeel bay isugu jiraan halkan iga weydiiyey hadda iminkaasi aan u arko su'aashooda waxa weeye Charso ma Oroma ma Soomaaliba ayaa gabadhii weydiisay khadra la yiraahdo hadda nu salaamaya walaashay khadra shukri oo salaamay dhamaantiin in odayo kale abiyan la yiraahdo wuxuu weydiiyey hadday Charsadu tahay Charsadu hadday Oromo Soomaali tahay maxay calanka Oromada u qaaday jawaabta saxda waxa weeye wala horta abiyan nimankan la yiraahdo Charso iyo nimanka la yiraahdo hadii alla ka dhigayo Boran Cali labaduba waa dad Soomaaliyeed laakiin dad dhaqan ahaan wax badan la wadaago weeyaan ummadda Oromada iyo deegaan ahaan ku hadlaan luqadda afka Oromada ayay si fluent ugu hadlaan sidoo kalena luqadda afka Soomaaliga waxay ugu hadlaan si fluent waa suurtagal inay lahjad ku leeyihiin sida dadka Soomaaliyeed ba hadii alla ka dhigayo afka ma iyo maxaa tiriga ay u kala hadlaan ama marka ay hadlayaan lahjada gooniyo kala leeyihiin in hadii alla ka dhigayo dareemaysa markay hadlayaan hadalkoodu inaanu safiix u ahayn sida dadkeenan hadii alla ka dhigayo maaragtaanay gobolada dhexe iyo waqooyi iyo dhulkan dega ee hadalka maaragtaanay faradhaadheertu ku hadasho hadloo kale inaanay hayn waa ummad xaqiiqadu waxa weeye anigu been idin sheegi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan galay xaqiiqada dhabtahay waxa weeye labada luqadoodba way ku hadlaan waana dad hadii alla ka dhigayo maaragtaanay wax badan la wadaagay aad isu dhaleen nimanka Oromada la yiraahdo dadka Soomaaliyeed iyaga iyo waxaan meega ugu digayaa dadka Soomaaliyeed kalena dhammaan nidaamyadii dalka Itoobiya yiri iyaga uu isku diri jiray sababtoo ah hadday Charso noqoto Soomaaliya horta ma maqashay waxaynu ognahay dadka Soomaaliyeed in badan oo kamidi ay aad iyo aad u taageeraan hanaankii iyo fikirkii mabaadi'da siyaasiga ah General Maxamed Siyaad وحقيقة ترتوي سومالي أبو كل يسقال بقول لي أفري اللحدن كيبه هرتا أيه بلا بنته ملاد الضد سوماليات أو كلا قدسن أو قيبة بدنا نقول كيتوبيا تكنيني هلقن كقيب قلان هلقن كيلو جدونا يحرنا ماذا وماذا الصومالي ده الصومالي ده يلاتي دبي يدو كيس كل شيء جنيس ضد كمركا إلى هلك تكني هلقن كقيب تكبد هاي سومالي أبو اللي وراني يهدو قاعدة وأنا ما كان ما أنت كعدلي يا الليل هي الصومالي مياه مسماها هذا الصومالي أبو هروج ما تحلقي محمد سياد بريك عنكي وارمع بمحق لي سلطان هذا خالد حقلا ما والله يقال لا ما قلنا بحسوسنية وحين ما أنت كعدلي نوح وين وضد الصوماليات وين أو إثيوبيان كواي مروا بيسكوت يشيرني إنك قاتان أو أي هدي الله كان ضد أنا هين أصل كود الصومالي marka waxa weeye ma waxaynu qaadanaynaa fikradihii iyo hadii alla ka dhigay aragtidii gumaysiga dir dhaba caasimadeennii ahayd baad arkaysaa nimanka in la yidhi kilka Soomaalida ka bidma maanta miyaan idiin sheegaa cidda ka dambaysay in hadii alla ka dhigay ay noqoto magaalada la yiraahdo dir dhaba caasimadda Soomaalida inay noqon weydo ma idiin sheegi maayo why waxaan kuu sheegayaa because hadaan ka baxayaa oo kaga digaya qabyaalad bay sheekadu nala galaysaa وكبحيا وكدقيا
horta wax lagu murmi karaba maaha jaarsa haye ku soco jaarsa ma oroma haye ay noo sheergaray barnaamijka dadku ka sheergarayaan inta gadaal ka soo gashay horta meesha wax ma la yiraahaa maba jiro jaarsadu waa originalkoogu waa dad dir ah waa cali madaxweyne dir waa dad Soomaaliyeed aniga ku hadlaynin madluug diraanahay adiga ila hadlaynin ma hadira tahay marka waa dir weey original cali madaxweyne dir waa dadkii dir hogaaminayay weey jaarso muran kama taagnaa laakiin dadka qaar waxay isweydiinayaan tigreega jabarti baa ku jira tigreega jili qabiil weyn oo jabarti la yiraahdo ku jira tigreega jabarti iyo Soomaaligan jabartiga ku jira xagee iska soo galaan waa su'aal iyo doob baahan inaynu wax ka weydiino ummadda Soomaaliyeed wallahi waa xaqiiq wallahi tigreega jabarti iyo tigreega Soomaaliya jira ma fahanteen waan gartay marka tigreegaasi jabartiga ah waa nabiil wuxuu doonayaa inuu meel kale ila kaco may maqlaysaan nabiilow kulama kacayo haye استعمل وكم حيصل عليك صح ما هكبحي waxa weey ilaa xaqiiqada ku hadlanaatay wallahi tigreey jabarti baa jira jabartigan kale ma isdhaleen maxalkiis ku yiin mar hadii la leeyahay jaarso waa oramo oo jaarsadana la yaqaanay cali madaxweyne dirkaay anagu waxaan su'aal aan weydiinanaa dadka waxa ku hadlaya ama qurbaha jooga ama gudaha jooga meel kasta jooga amba sanasteexana ugu sheeganaa bal loo soo kala macnaayay tigreey jabarti iyo jabartigan